kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada waraysi xasaasi ah oo TV-ga iyo raadiyaha warbaahinta wadaagsan media production oo la yeeshay siyaasi Cabdirashiid Cali Shire oo ku magac dheer Cabdirashiid Taakilo kana mid ah aqoon-yahanka siyaasiga iyo waxgaradka ka soo jeeda degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug Puntland. waraysigani oo dhinacyo badan taabanayay ayaa waxa uu u dhacay sida tan. daawadayaal iyo dhageystayaal waxaa khadka taleefanka noogu jira siyaasi Cabdirashiid Taakilo oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda degmada Tawfiiq ee gobolka Mudug Puntland. waxa uu siyaasigu waraysi kooban siiyay TV-ga iyo raadiyaha warbaahinta wadaagsan xarunta uu ku leeyahay magaalada Gaalkacyo. waxaan goor dhaweed khadka kula xiriirnay siyaasi Cabdirashiid Taakilo oo ka mid ah siyaasiyiinta degmada si aan uga xorweysano xaaladihii ugu dambeeyay ee dalka Soomaaliya, gaar ahaan xaaladda degmada Tawfiiq iyo shirar ay dhawaan soo saareen odayaasha dhaqanka degmada Tawfiiq ee ku aadan sida kuraasta kursiga federaalka, gaar ahaan kursiga uu ku fadhiyo Mahad Cabdalle Cawad iyo arrimo kale oo kala duwan. ku soo dhawow siyaasi bogga warbaahinta wadaagsan media and radio. وهي أولاً وعلى السلام هي فيجا يريد ودارسين دمان مامور كذا وشغالين كذا عاديات بندي السلام يا السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mudane aad ayaan kaaga mahadcelinaynaa sida sharafta leh aad u codsatay ama aad nagala qayb qaadanaysid waraysigeena. waxaan wax kaa weydiinaynaa taariikh nololeedkaaga. aad baad u mahadsantahay walaal. horta aniga waxaa la yidhahdaa Cabdirashiid Cali Shire. waxaan ku dhashay degmada Jariiban 1974 bishii Juulaay. kadibna waxaan ku soo barbaaray aabahay oo sarkaal booliis ahaa Kismaayo Jubbada Hoose, halkaasoo aan ku soo qaatay waxbarashadeedii dugsiga hoose iyo dhexe. ka bacdina waxaan waxbarashadii dugsiga sare uga soo baxay. marka waxbarashadii dugsiga hoose dhexe waxaan ku soo qaatay Jubbada Hoose Kismaayo. ka bacdina waxaan ku dhamaystay Shabeellada Hoose oo dugsiga sare uga baxay degmada Sablaale. kadibna waxaan ku soo gudbay Muqdisho oo halkaas oo aan markii dambena aan jaamacad ka bilaabay oo jaamacad uga baxay oo business administration maamulka maareynta. kadibna waxaan gudbay taariikh nololeedkaygii Kenya muddo joogay oo isagana aan waxbarashadii halkaa kasii watay. ka bacdina Carabaha waddanka la yiraahdo Qatar baan muddo joogay oo waxna ka baran jiray shaqaysan jiray. ka bacdina dalkaan Mareykanka soo wareegay. intaasna intii aan Soomaaliya joogayna lahaantii siyaasadda lagu baaburin jiray xilligii dowladda Cabdullaahi Yuusuf oo ay soo kacay dambeysay iyo wixii ka horreeyayba. marka waxa waxbarashada taariikh nololeedkaygii haddana waxaan joogaa Boston Mareykanka state Massachusetts. aad iyo aad ayaa u mahadsantahay mudane. dhawaan waxaa jiray shir ka dhacay degmada Tawfiiq iyo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. odayaashu waxay soo saareen baaq ku aadan kursiga federaalka. sidee u aragtaa shirkaasi ka dhacay degmada Tawfiiq, gaar ahaan sidee bay u arkaan siyaasiyiintu ka soo jeeda degmadu? walaal aad iyo aad baad u mahadsantahay. awalan waxa weeye odayaasha iyo nabadoonnada culimaadoyinka siyaasiyiinta iyo waxgaradka degan degmada Tawfiiq oo dhammaan beerweynta ka kala timid daafaha gobolada Puntland. runtii shirkii iyo warsaxaafadeedka ay soo saareen aad iyo aad baan u bogaadinaynaa una taageersanahay. waxayna xaq bayna u leeyihiin inay ka hadlaan mataqaanaa xuquuqdooda iyo ay ku leeyihiin dowladda federaalka iyo hadday tahay dowladda Puntland. maxaad ugu baaqaysaa dowladda Puntland iyo dowladda federaalka maadaama aad tahay siyaasi ka soo jeeda degmada Tawfiiq kuna hadlaya afka iyo codka shacabka degmada Tawfiiq? walaal waa mahadsantahay. su'aal fiican weeye. waxaan ugu baaqayaa awalan waxaan salaamayaa dowladda Puntland madaxweynaheeda Saciid Cabdullaahi Deni iyo xukuumaddiisa xildhibaanadii wasiirada. waxaan salaamayaa ismada iyo sidoo kale iyo xildhibaanada. waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. bacda salaam walaal gacali waxaan leeyahay
waxa weeye degmada Jariban iyo beelweynta Saleebaan Cabdulla oo degan dhammaan gobolada Puntland hadday noqoto bari sool sanaag iyo gudubka degta waxa weeye inay xuquuqda ay ku leeyihiin Puntland waa inay helaan hadday noqoto isimada xildhibaanada iyo xukuumadda qaybeeda kala duwanba inta ay hesho deegaanka mudug waxa degan waa la yaqaanaa Cumar Maxamuudka intay helaan oo kale waa inay helaan beesha Saleebaan Cabdulla ma garan su'aalkan waxaan leeyahay xuquuqda ku leedahay Puntland waa inay nagala raadaysaa xuquuqda ku leedahay dowladda federaalka ah hadday noqoto taqaanaa xildhibaanada iyo waxa ku leedahay waa inay la raadaysaa maadaama ay dadka iyo deegaanka beesha Saleebaan Cabdulla ay iyada dowladda Puntland mas'uul ka tahay ma garato walaal aad baad u mahadsan tahay mudane waxaa jiray dhowaanahan in siyaasiga ahna gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mahad Cabdulla Cawad ugu jiray inuu kursiga degmada u wareejisto deegaano kale sida gaar ahaan maamul goboleedka Galmudug arrintaasi maxay kala socdaan siyaasiyiintu degmada ka soo jeeda walaal waa maasantahay ninka la yiraahdo xildhibaan Mahad Cabdulla Cawad waxa weeye kursiga wuxuu ku fadhiistay waxa doortay ugaasyada iyo nabadoonnada ka soo jeeda beesha Saleebaan Cabdulla oo shirki cad tagayba awal doortay isagiyo iyo xildhibaano kaleba marka waxa weeye kursiga ilaa xilliga uu ku fadhiyay 20 sano ayuu ku fadhiyaa xaqna uma laha inuu 20 sano ku fadhiyo Soomaalida waxay ku maamulaa gacantii dhaqaaqaad baratay gumidka dhaqdhaqaaqa ninka waxa weeye wuxuu bartay inuu lacag laaluush ku soo baxo sanad walba xoogaa dad meel isugu geysto oo ilaa 51 qofood oo xilliga ahayd inkastoo la bedelay oo 320 laga dhigay marka waxaan leenahay walaal macaan kursiga inta ku fadhiday ummadda waxa weeye jaanasi fursad si kursigaana isku dayin inaad maaragtay aad meel kala geysid annaga beesha weynta Saleebaan Cabdulla waa la yaqaan Puntland bay wada degan tahay 95% waxa yaro xamar ilaa ka degan maalin annaga gobolladan ma taqaana Galmudug ma degin shaqada kuma lihin meelaha kale ma degin Puntland baan nahay waa in kursiga meeshii uu lahaa lagu soo celiyo waa in deegaankii dadkay lahayn ay helaan waxaan leenahay sharafta iyo karaamada awalba hore isaga qaatay mar labaadna iska qaadin deegaanka waxa weeye inta kursiga ku fadhin kartay ku fadhiday ku soo celi deegaankiisa iyo dadkiisa ku soo celi dadka kala jaalisi waana maasanta walaal aad iyo aad ayaa u mahadsantahay mudane ugu dambeyn waa su'aashii ugu dambeysay mudane maxaad ugu baaqaysaa beelweynta Saleebaan Cabdulla iyo degmada Tawfiiq maadaama aad tahay siyaasi xogogaal ah muddo badanna u soo joogay xaaladihii kala duwanaa ee dalkan soo maray maantayna si toos ah ula socda xaaladihii ugu dambeeyay ee dalku ku sugan yahay walaal aad baad mahadsantahay sidoo kale waxaan ku leeyahay waxaan ugu baaqayaa beelweynta Saleebaan Cabdulla oo degta Puntland waxaan ugu baaqayaa walaalayaal gacmaha isqabsada qaasada reer Tawfiiq waxaan ugu baaqayaa noqda walaala gacmaha isqabsada yaqaana isu tanaasula mataqaana hore u sii socda sida deegaankiina dhulkiina ku dhisan lahaydeen aad ku dhisataan insha Allah anaguna waa dhisanaynaa deegaankayga dhulkayga iska xuquuqda waa in meel walba lagu dhistaa xuquuqda Puntland ku leedahay iyo federaalkana waa inaad raadsataan idinkana aad noqotaan dad walaalaha oo midaysan oo hore u socda oo mataqaana iska ilaalisan tafaraaruqa iyo kala qobnaanta midnimada iyo wadajirka ayaa horumar iyo liibaan lagu gaaraa وانا سلام يا دمان ديانك يا دغمدا بيلها بيشت بالويد سلامة عبد الله ودقن وحاله يا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته او شيء نور وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته هذا يا ما سنتهي مدن داوديال iyo dhageystayaalkaasi wuxuu ahaa siyaasi Cabdirashiid Taakilo oo nagala hadlayay magaalada Boston ee cariga dalka Mareykanka oo goor dhaweyd khadka taleefanka kula xiriiray warbaahinta wadaagsan media and radio aad ayaa u mahadsantahay mudane